في ربوع المجد كنا نسع النصر المبين ونبيد الظلم إنا نرنا نور اليقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. walaalayaal muxaadarada ku saabsan qabiilka iyo qabyaaladda insha Allah waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob oo isdaba joog ah oo muxaadaradu ay ka kooban tahay. marka hore bilowga mawduuca waxaan ka hadli doonaa hordhac yar, hordhacaas oo ka kooban waxyaabo xaqiiqooyin ah oo jira oo waaqicna ku saabsan. insha Allah waxaan kaloo wax yar ka hadli doonaa oo qodobka labaad uu noqon doonaa sida diinta islaamku ay u cayday waxa la yiraahdo qabyaaladda. waxaan kale oo wax yar ka hadli doonaa oo qodobka saddexaad ah qofka shakhsiga ah qabiilku dhibka uu u keeno, inuu qabyaalad qofku uu ku dhaqmo ama uu ku dhex noolaado mujtamac iyo bulsho qabyaalad ku dhaqmaysa, dhibka ay qofka u keento. waxaan kaloo ka hadli doonaa insha Allah mujtamaca laftirkiisa qabyaaladdu dhibka ay u keento iyo gunaanad muxaadarada dhamaystir u ah. ikhwaani waxa la yiraahdaa qabiilka iyo qabyaaladda marka aan kala saaro ama aan qeexno, qabiilka waxaa laga wadaa si qofku uu fahmo marka hore waxaa qabiil laga wadaa in qofku uu leeyahay family uu ka dhashay, abtirsiyaha qofkan waa inay hebel family ahaanna waa familkaas. waana arki doonaa sida sharcigu uu isticmaalo. qabyaaladana waxaa la yiraahdaa qabiilkii ilaahay naga abuuray oo si khaldan loo isticmaalo. waxayna arrintaasi la mid noqon doontaa oon arki doonaa inay la mid tahay daawo si aan loogu talagelin oo dhakhtarku uusan ugu talagelin aad u isticmaashay oo dhib weyn uu ka imaanayo. ikhwaani waxa la yiraahdo qabiilka oo si xun loo isticmaalo maanta dadka dhexdiisa wuu ku batay. heer waxaa la gaaray cunugii yaraa oo hadda dhashay qabiil lagu koriyo, oo cunugii qabaa'ishii iyo qabiiladii Soomaaliyeed ay ugu kala jiraan laba khaanadood, qolo asaga ciddiisii ah iyo qolo ciddiisa saaxiib la ah iyo qolo cadow u ah ciddiisa, oo cunugii yaraa uu yaqaano. ninka dhallinyarada ahaa dhallinyaronimadiisii waxay ku dhisan tahay qabiil, odaygiina wuxuu ku dulbaaba'ay qabiil. waxaa jira sheeko dhacday oo waaqici ah oo cajiib ah oo markaad waaqiceenna ka turjumaysa. cunug yar oo aad u yar baa dhumay, reer buu ka dhumay cunugii. marka suuqaa laga helay cunugii oo soo dhumay oo meel aad aan garanaynin, markaasaa oday Soomaaliyeed loo geeyey. cunugii waxaa la yiri adeer magacaa hebel lama yaqaan marka ma garanayaan. markaasaa waxaa lagu yiri war cunugan aan qabiil ku raadinay si kale uma garanayne adeer cidda tahay. markaasuu wuxuu sheegay jilibkii ciddiisa ugu hoosaysay oo yar, wax garanaya ma jiraan. markaasee waxaa la yidhi si kale ma garan karee qabiilka waaweyn aan sheegnay saali adeer ma reer hebel baa tahay. markaasuu maya kuwaas weligay ma maqal. ma reer hebel baa tahay weligay ma maqal. ma reer hebel baa tahay ciddiisii xataa ma yaqaano kore weligay ma maqal. cid baa la sheegay ma reer hebel baa tahay maya kuwaas col baanay maba is arki karraba. markaas waxay dhaheen haye reer hebel yaa col ah, reer hebel ha loo geeyo waa reer hebel. markaasaa la gartay fiil cunugeennii yarka ah xataa wuu ku barbaarayaa, waxaa lagu korinayaa lagu anqarinayaa noocaas. waxyaabaha xaqaa'iqda waxaa ka mid ah dad badani in ay gaareen maanta inay ku faanaan anigu reer hebel baan ahay, isagoo ilaahay ugu talagalay in dadka lagu kala garto oo kaliya la yiraahdo qofkani dadkaasuu ka dhashay oo waa familkaas kanna waa familka iyagoon wax farqi u dhaxayn.
وقفك مركة حتى ليروحا وقبيانة اسكدا إنه ليه هاي مايا وحا ساني أهين جرتي تاريخ دو ساني أهيد هذا الجدال وحي اللي جاب بربورين كروحا وواحد نقل ترديشن سوجري وحنا دادكاس وحاكر موبيسا هذا الكإله أولي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هدي الوير هذا والراعي وحي إلهي الشاقي وقبيل كسيدي إلهي أغتلق أغتقما أو أفيريا أو أقرتا سخلدا هو استعمالنا وحقفك كليهي أنو وحان راعيا وحي آن آبياشي كسو قاري آباها هدوءها ميدا وحبو أغين وهدنا جاهل وسخلدا وحو استعمالي ما خلت كيف تكون راعيسا هذا الوحان الحسوسين يا ومن شاعر ويرو عجيبا من قبياء ومسلم وحليه أيها الفاخر سهلا بالنسب إنما الناس لأم ولأب هذا كان فيريا قفك كفانا ينصب كي قبيل كو ترتيب سو وركادي ضدك أوطاني وحاد له يا آبو قفكستا وكذو حليه أتراهم خلقوا من فضة أو حديد أو نحاس أو ذهب موحدو ملين سادتك قاركود إلا لا أبوري الذهب يا دايمون يا سيلفر يا وح كسر يا دتك كلا دتك قاركود ما لا أبوري وح وسيو أوليت أنت أسمعون با كسو حليه هي شاعر سو سيودا بل تراهم خلقوا من طينة هل سوى لحم وعظم وعصب dadka oo dhan hadaad fiiriso waxa laga abuuray dhoobo qof kastana waxa arkaysaa hilib iyo lafo iyo dhiig iyo xidido ayuu ka kooban yahay waliga maaragtan qof sida waxyaabahan ciyaalka la tutuso oo kartoonka aan nimankan leeyahay waxay ka yimaadeen planet kale iyo waxa dad waaweyn oo xoog badan oo bir ka samaysan oo la jabin karin iyo mid miskiin ah oo dhoobo oo laba kala qabiil maartan ma jiraan dadka oo dhan waa isku mid isku sibay u abuurayeen isku sibay u egyihiin markaasuu wuxuu ku leeyahay hadalkan bar si fiican u dhuuxa inama alfakhru bi'aqlin thabitin wa haya'in wa afaaf wa adab waxa wax lagu faanaa aqli fiican hadaa leedahay waxa wax lagu faanaa xishood iyo sariig hadaa leedahay waxa wax lagu faanaa dhowrsoonaan iyo edeb iyo akhlaaq iyo diin hadaa leedahay إخواني حقيقة اللبات أجرت سؤال بان سويدين دتك يا أبوري دتك وحا أبوري الله إلهي بابا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إلهي مركو دتك أبوري دتك أوطن وحوك أبوري هو يا أبو ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وحضابوا إذن كأبوري هوي إيا آبكليو إذن كأبوري مركزات بدتين مركز وحنا دينا عاسك فهمينا بني آدمك حق أصل كواسكو مد حق أصل كأوريجين كواسكو مدتك أوداني هل أصل بيليهن وحا حقيقة لا دتك هل كأصل له حكمة إلهي وحي كتمد إنو إلهي كالدودوه وحي كعرب كودوا كالدوه لوقضوا دي كلركود waa kala duwan yahay ilaahi baba dhahayo markuu arinta ka sheekeynayo ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم فيريا معنى وين إننا لما سمينيسو إنه قف كان لوقت كهلا كان لوقت كلا كهلا إنه قف كان مدوية كان عدية كان جيوية كان ساموية لكن وحي إلهي ليه آيات كإلهي بكمتها لو عبرقاته waxaa isla aayaadkaas ka mid ah ilaahay dadka inuu ka abuuray shacab shucuub kala duwan iyo qabiilo kala duwan fiir arintaas waxbay gogol dhac u tahay intaas oo qabiil buu ilaahay abuuray ilaahay baa ya ayuha naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha wa ja'alnaakum shucuuba wa qabaa'ila waxaan idin ka dhignay shacab tiro badan iyo qabiilooyin waxa xaqiiqo ah ikhwaani إن سويدينه وردت كان إلهي وهل أصل كأبوري